kulanti wanaagsan oo wacan dhageystayaasha nagala socda idaacadda waddanka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo Soomaaliya. qodobada aan warka idinkugu hayna caawa waxaa ka mid ah digniin laga soo saaray qarax ka dhici kara Muqdisho. maxaa ka jira in Itoobiya ay dhexdhexaadinayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo Axmed Madoobe? dowladda federaalka oo war ka soo saartay go'aanka maxkamadda ICJ ee dib u dhigista kiiska badda iyo diblomaasiyadda Kenya ee kama uu hogaaminayo oo qarka ka sii dhacaysa. ku soo dhawaada qodobadaas oo fidsan. hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Muqdisho ayaa soo saaray digniin amni oo la xiriirta weerar loo adeegsado qarax baabuur oo suurtagal ay tahay in laga fuliyo magaaladaasi. qoraal loo diray shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi laga yaabo inuu dhaco 48 saac soo socota. sida qoraalka lagu yiri ayaa la yiri argagixisada oo qorsheynaysa inay weerarkaasi u adeegsato baabuur waaweyn oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa beegsan karta baraha kontarool ee magaalada wadada Maka al-Mukarrama isgoyska kilometer 4 iyo agaaraha ee xeebta Liido. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan digniintan. qaar ka mid ah hay-adaha amniga Muqdisho oo la xiriirtay waddanka TV ayaa ka gaabsaday in aan kala hadalno digniintaasi. digniino noocan oo kale ah oo ay horey u bixiyeen hay-adaha shisheeyaha ah ee ku sugan xalanay ayaa waxaa mararka qaar xigay weeraro waaweyn oo waxa ay ka digayeen ahaa. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa soo wanaagsanaanayay toddobaadyadii dhowaa waxaana yaraaday qaraxyada iyo dilalka ay argagixisada ka fuliyaan magaalada Muqdisho kadib markii hay-adaha amniga ay sare u qaadeen dadaaladooda. waxaan arintan digniinta ugu soo gudbinay dhageystayaasha ku xiran waddanka TV ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho inay feejignaan dheeri ah ay sameeyaan isla markaana ay guryahooda ku ekaadaan 48 saacadood ee soo socota. ilaahayna wax dhibahayda ma tuuso. bal dhanka kaleeto Ambassador Cali Saciid Fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya ee ururka Midowga Afrika midowga Yurub aan dhahnay ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee dib loogu dhigay muddo 2 bilood ah oo kiiska badda ee u dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. safiirka ayaa sheegay in ICJ go'aankaasi ay qaadatay kadib markii ay tixgelisay codsigii ka yimid dhanka Kenya iyo sidoo kale jawaabtii ay ka bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Fiqi ayaa xusay in aysan wax dhibaato ah u arkin go'aankii isla markaana uuna ahayn mid dhibaato ku ah Soomaaliya sida uu hadalka u dhiga weeyay. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan tallaabadani isla markaana ay ku faraxsan yihiin. annaga waxa aan u aragnaa go'aan runtii fiican oo ma aragtay 2 bilood hadda bisha October kaliya ayaa naga xigta. marka annaga waxa aan u aragnaa go'aan aan dhibaato nagu haynin ayuu yiri Fiqi. ICJ ayaa habeen hore ku dhawaaqday in dib loo dhigay dhageysiga dacwadda labada dal waxaana la dhageysan doonaa 4 November ee soo socota iyadoo dooddu ay ku horreyn doonto Soomaaliya. dhan kale dhageysiga dacwadda badda waxa uu ka bilaabanaya maxkamadda ICJ September 9 2019 laakiin dib ayaa loo dhigay haddii uusan jadwalka isbedelin ayaa lagu yiri doodaasi ay ka soo baxday Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa horgeysay maxkamadda ICJ dacwad ka dhan ah dowladda Kenya August 28 2014 maalintaasi waxaa ka dambeeyay xiriirka Muqdisho iyo Nairobi aad ayuu u sii xumeynayay kadib markii wadahadallo xaldoon ah oo soo jiitamayay muddo 5 sanadood ah ay miro dhali waayeen ayaa dowladda Soomaaliya maxkamadda ka codsatay inay go'aan ka gaarto sohdinta badda ee labada dal iyadoo la raacayo qaanuunta badaha caalamiga ah. halkii Kenya laga sugayay ka soo warcelinta amaba muddada dacwadda ay October 7 2015 soo gudbisay diidmo hordhac ah. hase yeeshee maxkamadda ICJ ayaa February 2017 gaashaanka ku dhufatay doodii marmeerisyada ahayd ee Kenya. qaraarku wuxuu cadeeyay in kasta oo heshiis hore jiray haddana maxkamadda kama hor istaagi karto gudashada waajibaadkeeda dacwadda hortaala. Soomaaliya iyo Kenya waxa ay ku kala aragti duwan yihiin jihaynta sohdinta marta xeebta ay wadaagaan. Soomaaliya waxay aaminsan tahay in xuduudeeda badda ay si toos ah ula socoto midda dhulka taasoo ah xariiqda toosan oo loo yaqaano median line or equidistance line. aragtida Soomaaliya waa tan caalamka guud ahaan isku raacsan yahay. Kenya waxa ay ku adkeysanaysaa
is-sohdin badeedkeeda ay la wadaagta Soomaaliya ay tahay barbardhac oo loo yaqaano parallel kaasoo burqata xariiqda toosan ee labada dal wadaagan sheegadaasi waxa ay Kenya ku helaysaa dhul badeed Soomaaliyeed oo baaxadiisa lagu qiyaasay 100,000 oo kiiloomitir square ah lana mid ah qiyaas ahaan dhulka gobolka Jubaland isla markaana waxa uu sii xoogaystay kadib markii ay dowladda Kenya ku xadgudubtay ujeedada heshiiskiisa afgaradka ee lagu gaaray Nairobi 2009 kaas oo xusaya inuusan xalinaynin wixii muran ahaa ee labada dal horay ay uga socday ee ku saabsanaa sohdinta kala qaybisa xeebahooda 2012 Kenya iyadoo hab qaldan u isticmaalaysa heshiiska ay shirkadaha shidaalka baara ee ka xaraashtay 8 waxaad oo toddoba ka mid ah ay ku yaalaan aagga Jamhuuriyadda Soomaaliya falkaasi sharci darrada ah wuxuu xadgudub bareer ah ku yahay xuquuqda sahminta iyo ururinta dakhliga ee ka qaadatay the East African Qarashka Kenya ee badda Soomaaliyeed waxa ay daba socotay markii hab qadarin la'aan ah oo isla weyni ku dheehan tahay ay gacan dhaaf ku sameysay madaxbanaanida iyo qarannimada Soomaaliya October 2011 Kenya waxa ay si ula kaca ugu xadgudubtay xuduudda Soomaaliya iyadoo ujeedadu ahayd inay hesho maamul goboleed Soomaaliyeed oo hoostaga Kenya marnaba kuma xisaabtamin inay Soomaaliya ay kala kulmi karaan awood ama si hoggaan ay ka hor yimaada hanqaltaagideeda ay ku sheeganayso badda Soomaaliyeed taariikhdu markii ahayd June 2013 ayaa golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya dib u ansixiyeen go'aankii August 2009 kaas oo laalay heshiiskii afgaradka Soomaaliya iyo Kenya kuna tilmaamay wax kama jiraan tan iyo markii ay ku guuldareysatay doodii hor dhataalay maxkamadda Kenya waxay ololeynaysaa in gogosha garta lagu fiidinayo meel ka baxsan maxkamadda ICJ Kenya waxa ay ku baraarugsan tahay in xaqiiqda dhabta ah ee sohdinta badeedka ay ku doodayso uusan salka ku haynin shuruucda caalamka ee xuduudaha badaha inta kadib Kenya waxa ay bilowday inay isticmaasho xeelad canaad ah iyo sasabasho isugu dhafan taariikhdu markay ahayd September 2016 waxay qaaday Soomaaliya ku qaaday xayiraadii safarka dalka galka ee wadankeeda iyo oo tan 2006 taagneed dajinta ay Kenya ku kasbanayso Soomaaliya inta kuma ekaane taariikhdu markay ahayd Mars 2017 Kenya waxa ay u ballan qaaday Soomaaliya in saraakiisha dowladda ay ku safri karaan baasaboorada shaqada rasmiga ah iyo midka diblomaasiga ah inay dalka ku galaan fasax dal ku galaan ah waxa dadaalkaasi daba joogay hagardaamo dadban taariikhdu markay ahayd November 2018 ayaa wasaaradda difaaca Kenya damacday in Soomaaliya ku soo jiido ka mid noqoshada heshiiska amniga badweynta Hindiya Indian Ocean Security Deal iyadoo farta ugu fiiqaysa inay dan ugu jirto Kenya waxay mar kale waji gabax kala kulantay hankeedii kadib markii ay dowladda Soomaaliya ku gacan saartay haddii uu shirqoolkaasi u suurageli lahaa gacan ku haynta badda maamulkaasi waxay u gacan geli lahayd ciidamada Kenya oo Coast Guard-keeda dandaansiga iyo dhagarta Kenya waa arrin la yaab leh dowladda Soomaaliya ayaa London ku soo bandhigtay macluumaadka sahminta soo saarista kheyraadkeeda taariikhdu markay ahayd February 7 2019 isla markiiba Kenya waxa ay jeebka gashatay wanaagii yara inkastoo dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Spectrum ay u xaqiijiyeen in aysan qaadin tallaabo wax u dhimi karta dacwadda maxkamadda ICJ Kenya kuma qancin shaki bixintaasi oo waxa ay durbadiiba soo saartay bayaan xanaf leh taariikhdu markii ay February 16 2019 kaas oo ay ku soo ceerisay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan isla markaana dib ugu yeertay mid kamid ah danjire Lucas Tumbo oo u fadhiya Soomaaliya falkaasi oo ka baxsan hab maamuuska iyo xurmada daris wanaaga Maarso 2019 gulufkii baxal xoofeynta waxa cagta u dhigay dadaaladii gobolka oo Kenya kaga digayay culaadinta Soomaaliya iyo carqaladeynta nabadda geeska Afrika isla markaasna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ugu tagay madaxweyne Uhuru Kenyatta fadhigiisii iyadoo shacabka Soomaalida cara ka muujiyeen kulankaasi Kenya waxay dib boorka uga
uga jafatay siyaasadii cunaqabateynta Soomaaliya. Maaj 2019 waxay xayiraad dalku gal ah ku soo rogtay ergadii dowladda Soomaalida uga qaybgeli lahaa shir looga arrinsanayay iskaashiga xuduudda Geeska Afrika oo ay EU iyo UN ku soo qaban qaabiyeen laguna qabanayay Nairobi. Hagardaamadaasi waxaa ka dhalatay natiijo ka duwan midii ay ka filaysay. Kenya malaha waxa ay mileynaysay in Soomaalida oo qabyaalad boqongaysay aysan ku heshiin karin maareynta kheyraadkooda. Waxaase mala awaalkeeda dhabar jabiyey in baarlamaanka Soomaali si sahlan ku ansixiyeen sharcigii shidaalka. Kenya markii ay ku waabareysatay in maamulka farmaajo kheyre aysan dhag jalaq u siinin dadaasigeeda ay cunaqabateen hor leh ku dhaqaaqday. Waxay joojisay diblomaasiyadii tooska ahaa ee Nairobi Muqdisho mamnuucday rarka aan rakaab la socon ee diyaaradaha ka soo qaada Muqdisho si ay shacabka ugu kiciso dowladda Soomaaliya. Caqabadaha Kenya ay culays ku saartay dowladda Soomaaliya waxa kale oo ka mid ahaa in xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo la kulmay wafdi ka socday Hargeysa iyadoo ula dan lahayd qaranjabinta midnimada Soomaaliya. Waxay dhammaan diyaaradaha ka yimaada Muqdisho ku soo rogtay inay ku hakadaan Wajeer kahor inta aysan u gudbin Nairobi, halka kuwa ku soo duula Jubbaland ama Somaliland si toos ah ugu fasaxan yihiin ka digidda garoonka Nairobi. Intaa markii Muqdisho ay ka danqowday ayay Kenya bilowday weerar ay ku marmarsiinayso la dagaalanka argagixisada kuna ololeynaysa qaraarka 1267 oo ku saabsan in argagixisada loo aqoonsado urur argagixiso caalami ah. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa diiday Agoosto 8, 2019. weliba taabadelkeeda golahu wuxa uu ku booriyey dowladda Kenya inay meel marisa qaraarka 751 ee lala beegsanayo argagixisada oo ay ka mid tahay mamnuucidda ganacsiga dhuxusha dekeda Kismaayo ka baxda, iyadoo dhaliilo horle ay ka taaganayeen macaamilka ciidamada Kenya ee maamula dekeda la leeyahay ee argagixisada. Soomaaliya waxay markasta iyo meel walba madax banaanideeda ku ilaalinaysaa si nabad iyo asluub diblomaasiyad leh oo ay daris wanaag ku dheehan tahay, waana tan keentay in dacwadda ka gudbisa Kenya. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay ka feejigan tahay dhageerta Kenya iyadoo iska ilaalinaysa fal kasta oo laga yaabo inay wax u dhimi karaan daris wanaaga ilaa maxkamadda ka soo saarto qaraarkeeda kama dambaysta ah. Isku daygii ugu dambeeyay ee Kenya ku hor istaagayso inay dhacdo dhageysiga dacwadda badda ee hortaalla maxkamadda ICJ ayaa ah inay codsatay in dib loo dhigo xilligii lagu madlanaa oo ahayd September 9, 2019. Kenya waxa ay ku marmarsiinaysaa inay eriday 6 qareen oo ku matalayay dhageysiga dacwadda labada dal, ayna doonayso in waqti loo siiyo si ay u qorato qareeno cusub. Ilaa hadda Kenya waxa difaaca uga baxay qarash hor leh oo dhaafaya ilaa $3 milyan. Haddana waxaan sir ahayn inay u muuqato in fursadda guuldarrada dacwadda ka badan tahay tan midda hadda taalla. Haddaba Urkumanle Macharia Kamau waxa uu u baahan yahay inuu kala garto waxa la yiraahdo bisayl iyo bisayl la'aan diblomaasiyad inta uusan ka qoomamayn daris xumada uu keenay. ugu dambeyn xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xubnaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyey in Ethiopia ay dhexdhexaadinayso dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland ee hogaamiyo Axmed Madoobe. Jeeso ayaa been abuur ku tilmaamay warar ka soo baxaya saacadihii ugu dambeeyay ee sheegaya in Ethiopia ay kala dab qaadayso dowladda dhexe iyo Jubbaland. Xildhibaanka ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu yahay nin geystay dambi kala duwan isla markaana mar uun la horkeeni doono cadaaladda sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uusan ahayn madaxweyne sharci ah isla markaana ay xukuumadda Soomaaliya ugu fadhiyaan in la soo xiro. Dhanka kale wuxuu intaasi ku daray inay wadaan olole ka dhan ah ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, kadibna ay ka fikiri doonaan sidii maamul loo dhan yahay loogu sameyn lahaa gobolka Gede iyo Jubbooyinka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan u taagan yahay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Khilaafka ayaa sii xoogaystay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hortimid natiijadii doorashada madaxweynaha ee dhowaan ka dhacday gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Halkii aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda waddanka. Haddii aadan hore saaxiib u lahayn hadda la noqo adigoo taabanaya subscribe-ta. Ugu dambeynna mahadsanidin dhegeystayaal.